السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عبد الرحمن المختار. runtii meeshaan waxaa isoo gelisay dan guud. runtii qof bini'aadamka haddii oo dhibaataysan yahay waa qof walaalkaa dhibaato lagu fiirsado. waxaan u baahanahay inaa videogan ii share garaysiin oo dowladda ii gaarsiisiin madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha gobolka cusub. waxaan ka codsanaynaa inuu arrinteena naga fargeliyo. aniga runtii xaaskii ruqi waa isjecelnahay. runtii dad jecel isu guursadaan nahay. runtii waan isku kalsoonnahay. runtii haddana waa qof dad isjecel oo dhibaataysanna waa nahay. qof walba oo wax jecel yahay dhibkiisa qofkaasaa wax dareemi karo. runtii aniga qof waxaan jeclaada ahay. runtii gabartan gabar Soomaaliyeed waaye. waa haddana ilaahay xaaskayga ka dhigay. haddana xaaskayga waaye. runtii waanu ku kalsoonahay. waana igu kalsoon tahay. waana igu qanacsan tahay. marka waxaan u baahannahay hadda inaan aniga xorriyadeena si aan ku heli lahayn inaan aragno. runtii meeshaan shalay dowladnimo aan la keenay. maanta wax daryeelna meeshaan kuma haasano. xabsiga nolosheena kusoo koobmatay. runtii waxaan u baahannahay dad oo shaqaysan kara inaan nahay. waan shaqaysan karaa alxamdulilah. weligay waaba shaqaysan jiray. haddana meeshaan waxay igu soo xareysay waxay tahay dhib walba oo dhacay. hadda kama hadlaayo waxaas aniga. hadda waxaan ka hadlayaa dhibka i haasto waxay tahay sida aniga xorriye aan ku heli lahaynay. waa dad namaano aan nahay oo isku kalsoon oo na isjecel alxamdulilah. runtii calafka horta qofka bilaadanka calafka asiga ma haayo. calafkana anigana ma haayo alxamdulilah. runtii ilaahay mahad iskale. ilaahayna calafkeyga ka dhigay gabartan walaasheeda ruqayya cabdullaahi. alxamdulilah waa isku kalsoonnahay. waan isjecelnahay. shalay go-aankii aan ku taagnayna waa jecelkeena. runtii haddana waa ku taagannahay. waan isku faraxsannahay. waxaan u baahannahay aniga dhibaatadan oo na haasato inaan nagala saaro. runtii waxaan u baahanahay dowladda inay arrinteena ka hadasho. guddoomiyaha gobolka cusub cumar finish waxaan ka codsanaynaa inuu waxa noo qabto. shalay dowladnimadii shalay meeshaan go-aankii noola keenay inaa haddana lacagtii nagala dhiibo. u baahannahay waa dad oo iska dhibaataysanaa nahay oo haddana si jecel alxamdulilah. ilaah mahadiis waaye. qof walba oo bilaadan ah jecel wuu mari doonaa. waanu arki doonaa qof walba dhibaatadaas mafahanti. aniga runtii waa igu dhacday dhibaatadan. hadda waxaan u baahanahay aniga sidii aniga xaaskayga oo biilo lahaay ama ugu shaqaysan lahaay aan u baahanahay. lacag ilaa 30,000 dollar gaaraysaa lagu leeyahay dollarka Mareykanka ah. marka aniga lacagtaas qof dhiibi karna ma ihi. haddankaas hidan qof oo bixi karo haddana ma ihi oo nolosheena waa cabsanaynaa. haddana waxaan u baahannahay Soomaali weyn meel kastay joogaan inay videogan ii share gareeyaan. qof walba wax qabad leh wax ii qaban karo oo arrintan dowladda igala hadli karo oo dowladda oo arrintan ka bandhigi karo inuu u bandhigo hadalkeena. runtii dad isjecelna waa nahay waa noo jeediin alxamdulilah. haddana wiila ilaahay nagu soo biiriyey waa kaas wiilkeena axmed doole yaraa lahaa magaciisa axmed doole. alxamdulilah ilaahay awlaadaas iga siiyey. dad maantana oo meel qortay karna ma lihi. waa haddana dad maasha allah ilaahay awlaad dhexdeena soo geliyaan nahay. waxaan u baahannahay sidii aniga xorriye aan ku heli lahayn. caalamka waxaan ka codsanaynaa inay arrinteena inuu lacagtaana dhibiyo anka meeshaan dowladnimada lagu soo gelisay haddana meeshaan xorriyad mutaasan xabsi camal ku haysan. dowladda waxaa ka codsanaynaa inay lacagtaana dhibshada dhigis waana keen ilaa una xariisto guddoomiyaha lagu bedel. waxaa ka rabnaa inuu lacagtaana dhibiyo. aniga ninkii nolosha kalsoonaan oo iskecelna waxaan dad kala tagi karna wallaahi taas waa haddii aan runta ka hadlno waxay tahay shalay aniga meeshaan waxaa noola keenay dowladnimo.
runtii saas tahay ilaa u naxariista wuxuu jiray soo garab nagu siinayay hadda nin garabkeena waa ka baxay ilaa u naxariisto garabka ka wada baxay janno allaha ka waraabiyo hadda aniga waxaan ka hadlaynaa maxay tahay runtii dad isjecel oo dhibaataysanna waa nahay oo haddana owlaad ku xiriirto owlaadaan nagu xiriiro wiilaa ilaahay nagu soo kordhiyey oo boqolow ah caalamka waxaan ka codsanaynaa inay garabna siiyaan oo arrinteena hataa haddii dalka la geey karaa hataa inay la geeyaan waxaan u baahannahay runtii dad cabsanayana waa nahay meeshaan haddana cabsin waa ugu sii jirnaa lacagna ilaa $30,000 oo gaarisaa la iska rabaa waxaan u baahanahay inaa ii sheer garaysiin muhiimadeena waxay tahay inaa ii sheer garaysiin haddii hataa waxaa ii qaban karin waxay tahay inaa ii sheer garaysid adina ilaahay waxawaaye qofka bilaadanimo dhibaataysana adina aa u sheer garaynaysaa wax dhibaata kaama soo gaarayo walaalkayga walaashayda ii sheer garaya videoga ninka waraali ah haddana waxaan u baahannahay madaxweyne farmaajo waxaan kaa codsanaynaa inaa garabna siisid oo meeshaan xorriye la-aan inagu haasaa hotelkan waxaan u baahannahay inaa hotelkan oo lacagta nagala bixiyo oo lacagtooda la siiyo anigana sidii xorriye aan ku kala lehna inaa helno waxaan u baahannahay shalay dowladnimo iyo magac dowladeed aan kusoo galnay meeshaan aniga socono ma soo gelin shalay dowladdiina keentay waxaan ka codsanaynaa inay garab siiyaan oo lacagtan ilaa $30,000 gaarayso inay taasaan ka codsanaynaa waxaan u baahanahay walaalahayga iyo walaashayda waxaan u baahanahay inaa ii sheer garaysiin videogan runtii waa noo jeediin waxawaaye hadda eber 2 ahaanay haddana ilaahay 3 oo naga dhigay waxaan u baahannahay marka inaa wax noo qabataan oo noo sii sheer garaysaan ninka waraali ah walaalahayga qof walba oo bilaadan ay dhibaato way ku dhacdaa anigana ilaah anaga saaro inta musana dhibaato ku jirta ilaah ka saaro gudoomiyaha gobolka cusub waxaan fariintaan u diraynaa gudoomiyaha gobolka cusub waxaan ka codsanaynaa inuu booskii injineer Yariso Allah u naxariistay inuu noo buuxiyo oo lacagtan hotelkan uu leeyahay inuu naga bixiyo runtii waxay tahay shalay aniga meeshaan dowladnimaan noola keenay shalay dowladnimadii noola keenay aan u baahannahay maanta inaa dowladnimadaas wax noogula qabto oo shalay lacagtan hotelka dowladnimo loo bixinayay maantana waxaan u baahannahay inaan dowladnimo loo bixiyo hotelkan lacagtiisa oo anigana sida ku helno waxaan u baahannahay inaan videoga noo sheer garaysaan noo sheer gareeya video muhiimadan waxay tahay inaan noo sheer garaysaan caalamkan oo la wadaagtaan dhibaatadana haysato dadna waa nahay oo haddana isku kalsoon oo isjecel oo haddana owlaad ilaahay kusoo biiriyey waxaan u baahannahay inaa muhiimadda waxay tahay inaan noo sheer garaysaan oo dowladda naga gaarsiisaan oo madaxda farmaajo xasan khayre waxaan rabnaa gudoomiyaha gobolka kulli inaana oo naga gaarsiisiin u baahannahay ninka walaali ah aniga waxaan nagu leeyahay lacag runtii sano hotelka waaba nagala jartay hadda muhiimadda waxay taagan tahay inaa sida xori aan ku heli lahayn inaa caalamka eedaha kulli meel kasta joogaan naga gaarsiiya walaali ah qof walba bilaadan ah hadduu wax noo qaban karo wuxuu wax noogu qaban karaa videogaas inuu noo sheer gareeyo qof walba bilaadan hadduu wax noo qaban karin waxaan u baahannahay video noo sheer gareysaan qof walba oo maanta oo jecel soo maray mise jecel oo ka saaxiib waa dareemi karaa jecelku wuxuu yahay runtii aniga dad isjeclaan nahay
runtii hadda loo jeedin dhulkeena lagu oonayo marka cunug yar hadduu kugu soo kordho oo haddana wax maayo ma kasaayo marka meeshaan aniga waxaan usoo gelisay dan ma aniga haddii maanta oo dhan xuriya aan nahay haddii ahaa lahaanay runtii wuu soo gali lahayn laakiin intii noo sheer garaysay oo ku maasantihiin waxaan u baahannahay dowladda inaan naga gaarsiisiin mise hay-adaha adduunka inaan naga gaarsiisiin fiidiyoon hay-adaha caalamka inaan naga gaarsiisiin aqoon insaanka naga gaarsiiya dowladdeena waxaan ku codsanaynaa inay lacagtaan ay naga bixiyaan aniga waxaan nahay dad oo isjeclo oo lamaanayaal ah oo runtii haddana xorriye ah haysanin muhiimadda waxay tahay qofka inuu xorriye oo helo haddana xoogaa lagu walaalahayga ininka waraale ah ii sheer gareeya fideoan caalamkana waxaan rabaa inay ii gaarsiisiin dowladda xukuumadda Soomaaliya inay ii gaarsiisiin madaxda farmaajo ii gaarsiiya aniga waraale ah gudoomiyaha gobolka cusub ii gaarsiiya fariintan waxaa isu gelinaa meesha waxay tahay qof oo awlaadku xiriirna ma ahay oo dumar ku xiriirto maanta qof shaqaysan karana ma ihi muhiimadeeda waxay tahay inaa ii sheer garaysaan oo dowladda ii gaarsiisaan waxaan u baahanahay madaxweyne farmaajo waxaan u baahanahay inaana caawiso meeshaan aan ku dhibaataysannahay shalay meeshaan wacad dowladeeda nooga keenay haddana dowladnimadii nooga keenay shalay ma haasano madaxweyne farmaajo waxaan kaa codsanaynaa inaa meeshaan wax nooga qabatid dowladnimo waxaan noogu qabatid hotelkan lacagteeda naga bixisid sidaa xorriye nuu sii leedahay inaad na siisid gudoomiyaha gobolka cusub waxaan ka codsanaynaa unafanish gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa hotelkan lacagtiisa shalay ilaa u naxariistay madaxweyne jirigiisa jiray adina waxaan kaa rabnaa sidoo kale inaa naga dhiibtid lacagtan hotelkan noola leeyahay shalay dowladnimaa noola keenay haddana dowladnimadashaan noola keenay walaalayaal ii sheer gareeya ninka waraale ah ii sheer gareeya waxaan rabaa inay la wadaagtaan caalamka oo la wadaaga fiidiyooda ninka waraale ah 4 mitir aan ku jiraa runtii waxay tahay danta i haysto waxaa kamid tahay inaa 4 mitir aan ku jiro oo meel aan lugteeda u dhaqaaji karin meelna lugteeda ma geeyi karin wallaahi bilaahi talaahi runta waxay tahay nin walba oo runtaan u arkayo inaha ka daboolan sidii wax noo qaban lahay inuu raadiyo qof walkiina ahay fideoan ii sheer gareeya ii gaarsiiya madaxweyne farmaajo gudoomiyaha gobolka cusub ii gaarsiiya unafanish ii gaarsiiya video aniga waxaa hotelkan ku dhibaataysanahay aan ku xiranahay qof walba oo wax jecel waa dareemi karaa dhibka i haysto qof walba wax jeclaa doon waa dareemi karaa dhibka i haysto ani danta ingiliisa meeshaan tahay aniga oo tan ugu horeyso aniga qoftaan walaashayda ah ilaahay calafkeyga ka dhigay ma ahan in ani liigu dhawaateeyo runtii shalayna ilaahay garab iyaayay maantana insha Allah ilaahay garab igu siinayo ani wax qalad ah ma sameynin nin walba oo calafkiisa ana cid ka hor istaagi karta ma lahan ani runtii ilaahay calafkeyga ka dhigay gabartaan walaashayda ah weli ani waxaan aqoonsanahay qofka bilaadanka inuu bilaadnimada inuu wax ka saayo
waxaan u baahanahay videogan ii sheer gareeya aninkoo raali ah. biniaadamadu waxay ku jirtaa inaa adduunkaas uu yahay aakhir nin walbo. marka waxaan rabaa si muslimi igu sheer gareeya ee ii gaarsiiya madaxweyne farmaajo. runta waxay tahay qof oo califkay ilaahay ka dhigay ma ahan inay igu caasaan, inay igu dhibaateysaan. maanta aniga wax alla xaggiisa ku qoran cid oo hor istaagi kartaa ma jirin. anina ilaahay xaggiisa wax walba igu qornaayeen. calafkaygana ilaahay ayaa ka dhigay, ma ahan inaa igu caasaan. ani waxaan rabaa oo maanta iga baahanahay sidaa garab igu sii lahaydeen hataa oo haddii wax ay qaban kara ii sheeg wadaag madaxweyne farmaajo gudoomiye gobolka cusub. waxaan rabaa inaa ii gaarsiisiin video aninkoo raali ah. lacag ilaa $30,000 gaaraysaa liigu leeyahay. runtii man ka bixi karo hotelkan, hebel horaa waa cabsanayay. haddana waxay tahay lacag liigu sii leeyahay inaa caalamka ila wadaagtaan videogan eedaha meel kasta ii gaarsiiya adduunka aqoona insaanka meel kasta sidii wax liigu qabo lahaayay. taas igu dadaal aninkoo raali ah. qof walaalkiina ahay igu dadaala sidii ay ugu gaarsii leedahay eedaha adduunka joogaan meel kastay joogaan caalamka. madaxweyne farmaajo xasan khayre waxaan u baahanahay inay ii gaarsiisaan gudoomiyaha gobolka cusub cumar finish intaba ii gaarsiiya aninkoo raali ah. haddana ani waxaan u baahanahay muhiimadeeda waxay tahay sida ani xoriyaan ku heli lahay awlaadeena aan u yeelan lahay aan u baahanahay. haddana waxaan rabaa inaan videogan aan ka baxo. runtii waa ku mahadsantihiin intaa ii sheer gareysay. si walaalnimo igu sheer gareeya iyo la wadaaga adduunka caalamka meel kasta joogaan soomaali. waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysaan video aninkoo raali ah. farmaajo waxaan ka codsanayaa inay caawiso. waxaan dhibaateysanaa waxay tahay shalay meeshii dowladda i geysatay oo u geysay maanta ku dhibaateysanahay. xorriye la-aan aan ku ahay 4 mitir aan ku xiranahay. madaxweyne farmaajo waxaan ka codsanayaa inay waxa ii qabato dowladnimo soomaalinimo muslimnimo intaba waxay ugu qabato madaxweyne farmaajo. gudoomiyaha gobolka cusub cumar finish waxaan ka codsanayaa gudoomiye inaa waxa ii qabato. hotelkan lacagta liigu leeyahay shan waa liiga bixi jiray. waxaan ka codsanayaa maanta inaa iga bixiso. calaf leh waa dareemi karaa. qof walba oo calaf leh waa dareemi karaa dhibkii haysto. dunida ku nool oo arkaa. waxaan u baahanahay inay caawisaan oo ii sheer gareysaan video. ii sheer gareeya madaxweyne farmaajo ii gaarsiiya gudoomiyaha gobolka cusubna ii gaarsiiya. isbitaal xasan khayrna ii gaarsiiya videogan aninkoo raali ah. waa ii jeedaa inaan dhibaateysannahay. qof walba oo waxgarad leh waxaan ahay awlaad ah. waxaan u baahanahay inaa ii sheer gareysaan video aninkoo inta ii sheer gare kartaa ii sheer gare
si walaalnimo igu sheer garay anigoo mahadsan video ama ila wadaaga caalamka waa ku mahadsantihiin video aan ii sheer garay waa mahadsantihiin dhigani dowladda waxaa ku codsanayaan inay meeshaan bisha laga meeshaan keeneen gudoomiyaha gobolka Banaadir oo cusub waxaa ku codsanayaan inay meeshaan baxsho lacagta hoteelkana oo niga dhiibo shaqaanika meeshaan waxaa laga keenay balan waxa noo sameynaa waxana manala qabanin waxaa ku codsanaynaa xorriyadda aniga meeshaan iskaga baxno sida muhiimadda waxay tahay inaa sida xorriyadeena aan ku heli lahayn aan u baahannahay waxaan u baahannahay inaan noo sheer garaysaan videogan inka walaalahayga hadda aniga video kuma dheeraa karo runtii sheer garay oo mahadsan aniga mar labaad mar saddexaad waxaan usoo galaya waxay tahay danta ahaaso awgeeda usoo galayaa marka walaalahayga waxaa muhiimadda ee taalo waxay tahay waxaase u dhaceen lama dhaho wax walba xag ilaahay ku qoran yihiin waxaan u baahanahay in ay caawisaan oo wax iga qabataan oo madaxweyne farmaajo iga gaarsiisaan inuu lacagta naga dhiibo رئيس وزراء عصر خير إنه العطاء نيدي وقارسية قدوميها قبل كعصب إنه فنش وحن كعصنينا قدومي وحن كعصنينا نقرب الناس يسيد أو العطاء أو نقبل حسيد أو هوتل كانوا ليها صدق كل $. ii sheer garay walaalahayga ii sheer garay anigoo mahadsan oo raaliya igu sheer garay videoan caalamka wala wadaaga videoan dad oo namaanayaal isjeclaanahay oo haddana dhibaataysan waa isku kalsoonnahay runtii waxay tahay haddana dad walaada haasanaa nahay ilaahay wiil oo boqoloo na siiyey dad oo maanta oo meel ku kala tagi karna ma lihi dad isxumay karna ma lihi dad walaalaa nahay وهذا نسي كل سي صومالي اسكو جعلادين سي مسلمين ah فهمت هذا ان شاء الله يعني وان كان يو دحنا ما جعلنا هاي والله اسكو دما دونا wax walba oo dhaco iska maarno dad jeclaanahay aniga waxaan rabnaa inaa nagu caawisaan sidii Soomaalinimo iyo bilaadanimo iyo muslimnimo intii adduunka la joogo walaalayahay intii oo adduunka joogta qof qabo kartaa aakhir nin walba tiisa haasato أنا كان ما سنتي ولا هي شارك دريان فيديوان هذا ما سنتي هذا أدوك عنك أصلا أنا نعابيان وحرية النسيان سida xuriya aan ku heli lahaynay xurimaha sano 4 mitir oo ku odanahay intii 3,000 lacag oo aan leeyahay dad hore cabsanaayna waan nahay dad cabsanaayna waan nahay banaakan xuriya aan ku bartano intii lacagna waan leeyahay videoan ii sheer garay walaalahayga ii sheer garay videoan inkoo mahadsan adduunka meel kasta joogtaan ii sheer gareeya dal iyo dibadba videoan ila wadaaga caalamka adduunka arrinteena u bandhiga qof walaalihiin aan nahay videoan caalamka u bandhiga sidii aniga waxa noola qaban lahaay oo noola caabi lahaay oo garab nooga sii lahaay intaas haddii nagu samaystaa ku mahadsantaa walaalkayga sidaas wax noogu qabatay adoo mahadsan walaalkayga iyo walaasheeda adoo mahadsan
sidaas aba wax noogu qabatay video muhiimadda waxay tahay adoo dad noo gaarsiisid oo dadkii wax noo tari lahay oo noo caawi lahay videoan noo sheer gareeya muhiimadeena waa taas sida dad oo na caawiyo Soomaali waa la helayaa adduunka meel kasta ay joogaan video noo sheer gareeya dal iyo dibadba meesha aad joogtaan igu sheer gareeya insha Allah ilaahayna khayrka ilaahay uu waafajiyo nin walba oo khayr lehna ilaahay khayrkiisa Allah u saalo idinkana waa ku mahadsantihiin video noo sheer gareysaan anigoo runta idin sheegay waxay tahay qofka sida oo ilaahay calafkiisa ku sahlo waa loo caawiyaa ma loo diido runta waxay tahay inaa igu caawisaan qoftan walaasheena ah runtii ilaahay calafkeyga ka dhigay runtii waxaan kulli shay calaf waaye haddana calafkeyga oo ilaahay ka dhigo haddana ilaahay walaad iga siiyey meelaa ku xumeeyay ma taagnay meelaa ugu tagay ma taagnay haddana waxaa rabaa inaa igu caawisaan oo garab igu siisaan oo caalamka oo la wadaagtaan dhibaatadeena caalamkana oo la wadaagtaan videogeena usoo bandhigtaan sidaan dhibaataysana waa noo jeedaan sida xuri la'aan sidii markii ilaa haddirtaan aniga meelaan ku qarinayo muhiimadda waxay tahay inaan fiidigaan noo sheer gareysaan oo caalamka oo la wadaagtaan walaalahayna waa mahadsan noo sheer garee dowladda waxaa ku codsanaynaa inay lacagtaan naga dhiibshan meeshaanaydi dowlad nimaana u keenay haddana waxaa naga hoostaa lacagta anaka meeshaan shan anaka miiska imaanin dowladana keentay dowladana lacagtaan naga dhiibto gudoomiyaha gobolka banaadir waxaa ku codsanaynaa inuu lacagtaan naga dhiibo irikoon waansan irikaan noo gaarsiiyo mahadsantiin walaalahayga meesha ugu bixinaa videoan intii noo sheer gareysay walaalahaygana ah waa ku mahadsantihiin intii wax noo qabatayna waa ku mahadsan yihiin nin walba oo qabashadooda waxay tahay adoo ii sheer gareysay runtii ila wadaagtay dowladda iyo runtii caalamka taasaaba waxa noogu qabatay aan ku mahadsantahay adayna walaalkayga oo waqti noogu bixisay aad ugu mahadsantihiin muhiimadda waxay tahay inaan noo sheeg gareysaan videoan oo caalamka adduunka meel walba bandhigtaan dhibaatadana haysato nin walba bilaadan dhibaato way qabsataa waan ka baxaa insha Allah khayraan idin rajeynaynaa ku mahadsantiin walaalahayga sidaasna ugu bixinaa videoan waa mahadsan